Guusha waxay u baahan tahay qorsheyn joogto ah iyo waqti u hurid. Qof kasta oo guuleysta waxa uu bixiyay juhdi sidii uu u gaari lahaa guushaas. Haddaba waxaan muuqaalkan kugula wadaagayaa 10 caado ay leeyihiin dadka guuleysta. Ku soo dhawow mowduuceena maanta. Nambarka koowaad waxay qortaan hadafyadooda. Guushu waxay ka bilaabataa rabitaan iyo inaan cadeyno waxa aan rabno inaan xaqiijino. Dadka guuleysta waxay qortaan hadafyadooda iyo shaqooyinkooda iyo sidii ay ku horumarin lahaayeen. Sidoo kale waxa ay qiimeeyaan waxa u qabsoomay iyo waxa aan u qabsoomin. Waxay si gooni ah u qortaan wixii u baahan dadaal dheeri ah. Nambarka labaad waxay ka bilaabaan shaqooyinka ugu muhiimsan. Subaxdii waa waqtiga ugu fiican oo hawl walba diiradda la saari karo. Waxaan dareemaynaa subaxdii caaboonaan, deganaan iyo weliba energy badan. Dadka guuleysta waxay ku horumaraan shaqooyinka ugu muhiimsan ee hadafyadooda. Waxay soo toosaan waqti hore. Waxa ayna samaystaan dabeecad isku mid ah subax walba. Nambarka saddexaad waxa ay raacaan jadwal. Maalin kasta oo cusub uguma dubna maalmihii ay soo dhaafeen, sida xilliga ay hurdada ka soo toosaan, shaqada aadaan iyo weliba xilliga wax akhristaan. Waxay ku dhaqmaan jadwal isku mid ah loona dejiyay waqti fog in lagu dhaqmo. Nambarka afaraad waxa ay maareeyaan waqtigooda. Dadka guuleysta waqtiga way qiimeeyaan. Waxay ogyihiin qiimaha uu u leeyahay waqtiga guushooda. Kuma xisaabtamaan saacad ee waxay ku xisaabtamaan second. Waxay jecel yihiin hawl walba inay ku qabtaan waqtigeeda. Marka ay maareynayaan waqtigooda waxa ay hubiyaan waqti walba iyo hawshii ku habboon. Nambarka shanaad wax cusub ayay bartaan. Dadka guuleysta ma joojiyaan inay wax bartaan. Waxay raadiyaan casharo badan oo nolosha ay ku heli karaan khibrad iyo waayo-aragnimo dheeri ah. Sidoo kale xilliga ay firaaqada leeyihiin waxay qabtaan adeegyo aqoontooda kor u qaadaya, sida akhriska sheekooyinka, wararka dunida. Sidoo kale waxa ay ka qayb galaan siminaarada waxtarka leh. Nambarka lixaad waxa ay muhiimad siiyaan caafimaadkooda. Dadka guuleysta waxa ay daryeelaan caafimaadkooda ayagoo ku noolaada nolol isku dheelatiran. Sida cunida raashin isku dheelatiran, waxay si joogto ah u sameeyaan aaliminta ay ku dhiseeyaan jirkooda. Sidoo kale waxay waqti siiyaan nasiinada. Nambarka toddobaad waxay abuurtaan xiriir micno leh. Xiriirka aad la leedahay asxaabta waa qayb ka mid ah hantidaada. Dadka guuleysta waxay ogyihiin xiriirada ay sameynayaan iyo qiimaha ay u leeyihiin. Waxay xiriir wanaagsan la leeyihiin dadka ka agdhow, sida dadka shaqada kala dhaxayso iyo asxaabta u gaarka ah. Waxay abuurtaan fursado kuwaas oo hormuud u ah xiriiradooda. Nambarka sideedaad waxa ay leeyihiin hiwaayado wax soo saar leh. Dadka guuleysta waxa ay doortaan hiwaayado wax soo saar u leh naftooda, sida inay wax sawiraan, wax qoridda ama editinka. Waxay u arkaan wax kabi doona mustaqbalka hibooyinkaas. Kaliya uma sameeyaan falaad ee waxay u sameeyaan inay xirfadooda kor ugu qaadaan. Nambarka sagaalaad waxa ay maalgashadaan lacag. Fursadda ugu wanaagsan lagu taajiri karo lacagna lagu tabci karo waa in lacag la maalgashadaa. Dadka guuleysta waxa ay kordhiyaan dakhligooda. Sidoo kale waxay samaystaan saving ama kayd si ay u sameeyaan maalgashi. Waxay yaqaanaan halka ay maalgelinayaan iyo halka ay faa'iidada ka imaan karto. Nambarka 10aad qaladaadkooday wax ka bartaan. Guuldaradu waa wadada loo maro guusha. Dadka guuleysta kuma laabtaan qalad ay hal mar sameeyaan. Waxay bartaan qaladaadkooda waxayna ka qaataan ficil iyo go'aan si aysan ugu laaban qaladka. Guuldarada ma burburiso hadafkooda iyo himiladooda ee waxay ka sii qaadaan dhiirigelin iyo firfircooni. Haddaba 10kan caado teebaa noloshaada ka mid ah. Sidoo kale teebaad isleedahay way ugu muhiimsan tahay. Fikirkaaga commentiga ku soo qor. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ka heshay like, share, comment. Sidoo kale subscribe haddii aad nagu cusub tahay.